Pep Guardiola oo magacaabay cidda sababtay guuldaradii kooxiisa ka soo gaartay Nottingham Forest. Manchester City ayaa guuldaro 1-0 kala kulantay Nottingham Forest kulan ka dhacay City Ground, taasoo sii xumeynaysa rajadooda horyaalka Premier League. Goolka kaliya ee ciyaarta waxaa dhaliyay Callum Hudson-Odoi daqiiqadii 83aad, isagoo ka faa'iidaystay baas qurux badan oo uu ka helay Morgan Gibbs-White, kadibna kasoo dhex qaatay kubadda daafaca City, gaar ahaan Josko Gvardiol, si uu kubadda ugu hubsado shabaqa. Intii lagu jiray ciyaarta, Manchester City ayaa haysatay 69% kubadda, balse ma aysan awoodin inay fursado waaweyn abuuraan. Dadaalada ay sameeyeen Nico Gonzalez iyo Jerome Doku waxaa si sahlan u joojiyay goolaha Forest, Matis Celis. Dhinaca kale, Nottingham Forest ayaa muujisay difaac adag iyo weerar rogaal celis ah oo halis geliyay difaaca City. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa kartay in kooxdiisu aysan si fiican u ciyaarin, isagoo sheegay inaysan helin fursado badan oo cadcad isla markaana aysan si fiican u isticmaalin kubadda. Guardiola ayaa sidoo kale ammaanay difaaca adag ee Nottingham Forest iyo sida ay u maareeyeen ciyaarta. Guuldaradan ayaa Manchester City ku nagaadisay kaalinta afraad ee horyaalka, iyagoo leh 47 dhibcood, halka Nottingham Forest ay kor ugu kacday kaalinta saddexaad waxayna leedahay 51 dhibcood, taasoo xoojinaysa rajadooda inay u soo baxaan Champions League xilli ciyaareedka soo socda. Guuldarooyinka isdaba jooga ah ee Manchester City ayaa walaac ku abuuraya taageerayaasha iyo maamulka kooxda, iyadoo ay u muuqato in kooxdu u baahan tahay isbeddel degdeg ah si ay u soo ceshato qaab ciyaareedkeedii fiicnaa.